koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan indhibaata igu filane faraqaan ku haystaa weli faalka caashaqu maygu soo fadhixun yahay war sidaa ma aha ku dheelin bahasha indhibaata nugu filane qarahaan ka hayna war bahasha naga dhaamin intifaacya igu filane dhagaxaan ka haystaayey askartana ka fiicnaayey war gudoomiyaha amniga gobolka banaadir maanta wuxuu yidhi qaraxii ka dhacay muqdisho asagoo ciidamada ka dhuumanaya ayuu luqluq yar gala kadibna bow ow dhaha war gudoomiyuhu runtoosa sheegi karine gaarigu ajab laamiga dhexdiisa uu shidaal ka qaadanay war horaa waxaa loo yidhi rumaan la sheegin maahine rati dameerka raad qurxoon war bugtaan magaalada muqdisho caadada u noqotay tii maanta u dambaysa meeqaa ku baxday war muqdisho waxaa la isweydiiyaa bugtii yeertay ma ka badbaadda ee meeqaa ku baxday laisma weydiiyo war afhayeenka gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga laba keliya ku dhimatoo yidhi talow inta kale xaguu geeyey war gudoomiyuhu intuu yaqaanuu sheegaye adinku haddaa dad kala taqaanaan sheega war meesha maanta bugtu ka dhacday meel aan ka fogayn oo la yidhaahdo xerada gaadiidka booliiska xaflad weyna caawa ka dhacaysa war xafladda weyne aad sheegaysa maxay tahay 8 February weli lama gaarine war 22 Oktoobar mar hore la soo dhaaf war 22 Oktoobar sheegaysid 14 Oktoobar baa lagu hilmaamaniyo war sheekadu shala maanta ku ilowmiya maya waa xamar garow ku ilow war niman warka naga dhageysta waxaad sheegaysaan 30 January ka dambeysay xafladda waxa la yiri lacag badan ku baxday waxaana lagu xusayaa halkii sano oo gudoomiye Yiriso oo gobolka Banaadir maamulayay waxaan sagara waay wax qabadka Yiriso uu ku faani doono war yaa gudoomiyahan wax qaban miyay tayni la farxiyo ka beero ugu heesti lahayd indhibaata ugu filane faraqu ku heesta dhan waraa muqdisho balaaya kama jirtee dalxiisayaal noo joogay qaraxyada iyo waxa sheegaysaan ama qashiinina xafladda caawna way ka qayb galayaan warnimayo waxa la yiri garow markii la isaaf garan waayay bisha saddexaad ayaa mar kale loo ballamay in dani madaxda gogol u dhigo sababta keentay in garow mar kale gogosha la dhigana waxay tahay la yiri Axmed Madoobe oo yiri waa tii awowgay lagu wax kasta oo la sheegay muqdisho aanan tageyn war Axmed Madoobe aqli buu leeyahay haddii kale muqtaar rogow ayay mushaarada wada cabi lahaayeen war Axmed Madoobe aad balahan hadda ka hor baxaaf markii lagu casumay calaamasaarka lafta gareen waa kii yiri sidii rogow baa la qiyaamayo la xiri rabaa wallahi baanan yeelay waligay anigu ma arag madaxweyne xabsi ka baqay warnimada waxa la yiri gucashiya dib iyo godob foolatay gurigeed baayay guul lagu farxiyo miyaad gacal dhashaa warnimada waxa la yiri Cabdiramaan Cabdishakuur wuxuu ku duceystaa ilaahu kursiga ha igu adkeyn sida Ra'iil Odinga iyo Faysal Cali Waraabe ee mar uun xilkaysi Axmed Madoobena wuxuu ku duceystaa ilaahu meesha Shariif Xasan iyo Cabdiweli Gaasmareen hay marsiin oo sida Erdogan afgambigu uga badbaaday nabad iyo nolol iga badbaadi war xafba wuxuu ku duceystaa ilaahu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha garansida inay galmudug ka soo jeedaan war Muuse Bixina wuxuu ku duceystaa ilaahu ictiraafka Soomaaliland ha igu ceebayn oo ha igu kashifin madawiile lafta garaagna may ka do'aysaday ilaahu andiyan afartaysana ka dhamaysadaa obooro waa suurju juubjay qaraabadiis in googaysidoy wareeda madaxweynaha Uganda iyo weerika guuto mabuuto Museveni webaliyo sebo warsun hal lagu qasana dhageyso war la yaab laa ka soo baxay oo miis ka soo haraacay warka iga dhaxgelinina wuxuu yiri Soomaaliya dawlad shaqaysa kama jirto war annaga la qabnee hana ictiraafo marka anu waxaan u malaynayaa Kampala Accord inuu soo wado taada ma ahayd yaalay noqon war Kampala Accord farmaajo hadda ka hor ku baxay ma marka loo raba inuu ku bixiyo war waa xiriirka in loo jaro ciidankaagana la baxleeyaa of labadoodaba war waxaan maqli jiray ludda jecli lafta jecli Kampala Accord farmaajo ma jecla Uganda ciidankeeda la baxdana ma jecla hadalka Museveni ma jeclaysan warnimayo waxa la yiri Afrikaan gabyayaan xigmada laga siyaadayne hayla yaabinina waa murtida gogoldhigeedii ayagoo dameeriya fardiyo lo iyo geel haysta aqli badan haday leeyihiin kama tahriibeene ayaga isxaasida hayee lama gumaysteene Soomaaliba Uganda ku tiri dawlad ma ahidine yuweyrina warku ku hadlaya daacad ka ahaaye intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badin
lama harafoodan dinaariya yaana sii badinina kii bismillaahi warnigii toddobaadkii la soo dhaafay ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Deni maanta ayuu shaqadiisa u horeysay qabtay war ma madaxdiiba oo heshiisiyey war wuxuu waraaqii aqoonsiga ka gudoomay qonsulka Itoobiya u fadhin doona Garowe war adeer waxa soo wuxuu Cabdi Weli ku baxay weeyaan war waxa sabay Axmed isku maanaan ogay war Deni hawltaas ka weyn baa u taala waxaan maqlay gobolka bari Daesh iyo Shabaab inay ku dagaalamayaan waa inuu dagaalamayaan ana cunaya dalka iyo ana cunaya marka kuwaas inuu ka hortago oo dalka ka qabto ayaa laga sugayaa boowe Puntland xamar ma aha war gudhu iyo dhiigiinu muxuu macaanaaday war Soomaaliyan iyo al-shabaab waa isla jooga ismana arkaan marka waxaan maqli jiray ayayda ku duceysata Allah il iyo dhag naga dhig warniyo qaracad tareedisha ka dhacay ma Soomaaliya ku dhimatay masaajinaba ma saciidan war adeer Somaliland horumar bay ku talaabsatay hadda imaka waxa ka socda tartan orod ah oo wadamada xawla caalam oo dhan isugu yimaadeen war saas ma ahina waxa isugu yimid meesha orodayahana ka socda wadamada aan ixtiraafka haysan war fadhiga hadii lagu aqoonsan waayay inay ordaan way ku qasban yihiin Soomaaliya waxa la yiri weli kaalinta koowaad uga jirta musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta maalin dhawaydii mana lahayna musuq iyo maasuq waanu dhalanay Ingiriiska inta uu ka yimid mana lahayna war warkiina iyo warkii qayra waa isburinayaan maxaad madaxda uga daba hadashaan war musuq iyo maasuqa dhalashay dhiig baan wadaagnaa war hore loo yiri musuq maasuq Soomaali waa maharadeedii waxaan koonka ku nool qofba meel ka kurbaysane idinkuna kalamaanay waxbaad soo kordhiseen war annagu musuqa Soomaaliyan kordhinaana nabi waryaada wax wanaagsan sheega ama musuq ahadin xoolaha dadka hadii kale sharciga musuq maasuqa ayaa ku qabanaya war sharciga musuq maasuqa nabadii nolol waa ka horeeyay 60 kiilo ayaa leeyahay mar hore lu duugay noolaytaan waryaa cid kasta musuq maasuqa madaxa dhulka loo gelinaya naga taga qaylada ay shahaadaas waryaa ma la gelin karo qowsaarkay qaanka kala war shibno ar sharti ilaahay noo hijaaba